subaxnimo wanaagsan asxaabta inagu xiran meel kasta iyo xilli kasta joogtaan waa subaxnimo Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 24ka bisha Juun sanadka 2026 waxaan kala soo hadlayaa bartamaha xaafadda Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxa halkan maanta ka dhici doona banaanbax dadka ka soo horjeeda dadka ajaanibta ay ku qaban doonaan xaafadda Mayfair oo Soomaalidu ay ka degan tahay waxaana muuqda in guud ahaanba ay xiran yihiin goobihii ganacsiga ee xaafadda Soomaalidu ay ku leedahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika kaliya waxa saaki furan xafiiska gudoomiyaha Diaspora Forum Amir Sheikh halka oo laga hagayo ciidamada ilaalinayo amniga xaafadda iyo banaanbaxayaasha waxay u badan tahay in loo asteeyo jidad cayiman oo ay maraan si nabdoon ay ku maraan dadka dhigaya banaanbaxa waxaana muuqanaysa in awaamirtii ka soo baxday ciidamada amniga iyo gudoomiyaha Amir Sheikh ay qaadatay dadka Soomaaliyeed ee ku nool xaafaddan isla markaana ay gabi ahaanba xireen goobaha ganacsiga si loo ilaaliyo badqabka ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale ganacsigooda waxaana muuqanaysa in banaanbaxani uu noqon doono mid aan rabshado wadan isla markaana ay mari doonaan dadka banaanbaxa dhigayo goobo loo cayimay